بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا فرجا قريبا لهذه الأمة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. أما بعد، الحديث الرابع، حديث كأفراد وكمد أحاديثي أفرتن كيو كسيس الرئيسي كتابك الأربعين النووية والإمام النووي كسوري رحمة الله عليه ayaa aynu qaadanaynaa xadiiska afraad. Xadiiska waxaa soo warinaya saxaabigii jaliilka ahaa ee Abi Cabdurrahmaan Cabdullaahi bin Mas'uud. Saxaabigani waxa uu caan ku ahaa magaca ibnu Cabd. Saxaabigani waxa uu dhintay sanadii 32kii, dadka qaarkoodna 33kii hijriyada ayay yiraahdaan, waqtigii khilaafadii Cuthmaan bin Affaan. Saxaabigani isagoo 66 sano jira ayaa u dhintay, waxaana lagu aasay xabaalaha ay ku aasan yihiin shuhadadii saxaabada ee al-Baqiic. waayahay waxa uu ka qayb galay dagaalo fara badan oo nabiga magaranayay la socday. waxaa kamid ahaa dagaalkii Badr, Uhud baa kamid ah, macrakadii Khandaq baa kamid ah Madiina hareeraheeda, baycatu Ridwaan baa kamid ah. Saxaabigani Ilaahay ka raali ahaaday waa saxaabigii qudha ka jaray Abi Jahl oo dhaawacan ayaa markii macrakada magaranayay ku dhaawacmay, waxa dhaawac tiray oo u dhameeyay Cabdullaahi bin Mas'uud. saxaabigani waxa uu wariyay ilaa 44 xadiis wax ku dhow, waxaanu ahaa saxaabi aad nabiga uga ag dhow. waqti jaahiliyadii ahaydna waxaa dhacday intii aanu soo islaamin in ay Abubakar iyo nabiga oo wada socda ay soo mareen isagoo ari la jooga. markaa dabeetana uu nabigu ku yidhi isagoo Cabdullaahigan uu yahay magaranaysaa nin yar oo aan aad u sii weynayn, uu ku yidhi ariga bal noo soo lis. markaasuu dabeetana waxa uu ku yidhi ma idin lisayo oo waa igu ammaano arigani, maaha arigaygii, laakiin ariga waan la joogaa, waan raacayaa. markaa ninkii lahaa ayaa igu ammaanaystay oo ma idin lisayo. hadda waqtigaasna muslim mu ahayn, waxa uu ahaa mushrik. rasuulku calayhi salaatu wassalaam waqtigaas waxa uu sameeyey, wuxuu yidhi waxaad noo soo qabataa neef lax ah oo aan weli magaranayay aan dhalin magaranayay oo dee quran. marka aduu waxa weeye waa mucjizaadka rasuulka ayay kamid ahayd waqtigaas in uu laxdii qudhnayd magaranayay intuu Ilaahay bariyay uu salaaxay candhadeedii, dabeetana ay laxdii darartay. markay darartay dabeetana dhagax yaroo gudan oo sida koobka oo kale u samaysan isagii iyo Abubakar ay ku maaleen. Cabdullaahi bin Mas'uud qudhiisu magaranayay uu ka dhargay caanihii, kadibna markaa laxdii adana Ilaahay u bariyo intuu magaranayay candhadii dib u salaaxay ay magaranayay qudhay. markaa waqtigaas baa jirtay in saas ay dhacday. uu magaranayay saxaabigani uu rasuulka ku yidhi, rasuulka Ilaahayow cilmigan aad magaranayay san ku samaysay bar. dabeetana rasuulku ugu jawaabay innaka ghulaamun mucallam, aduu waxaa tahay wiil cilmi Ilaahay siin doono magaranayay duco ayuu duceeyey. waxa uu yidhi markaa Cabdullaahi bin Mas'uud, Abi Cabdurrahmaan Cabdullaahi bin Mas'uud wuxuu yidhi waqtigaas rasuulka Ilaahay waxa aan ka bartoon afkiisa ka haya 70 suuradood oo aan qof kale igu haysan ayaan si toos ah uga bartay. marka waxa uu ka mid noqday
afarta qof ee magaranaysa rasuulku yidhi si toos ah uga barta qur'aanka oo magaranaysa ugu horeeyay isagu Cabdullaahi bin Mas'uud iyo Ubay bin Ka'b iyo Mucaad bin Jabal iyo Salim mawla Abi Xudayfa horta saxaabigan aadka u jaliilkii maxay waa yani culayska inta leeg waa kamale magaranaysa makaanadiisu ama magaranaysa booska uu islaamka kaga jira ay sidaa u weyn tahay marka xadiidka afraad waxa uu yiri saxaabigu قال حدثنا رسول الله وحا نو ورمي أما نو شيكي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق سوى كرنت الشيغة اللوغة قادن أغيه أما دي مثلا سوى صادق أو رنت الشيغة لنفر ميسن أغيه أيا وحا نو ورمي إنو يري إن أحدكم متكين إن أحدكم متك إذا كان يجمع خلقه يعني أبور كيس وحا لغو أروريا في بطن أمه أوركو يدي 40 يوما أفرتن مع الموت بوهانا يعني نطفة عن دوفير ثم يكون وحا وهانا علقة حنجرير بوهانا مثل ذلك أفرتن كافرتن كوده ثم يكون وحوهانا مضغة وصلت ير مثل ذلك أفرتن كوده ثم يرسل وحلو صدريا إليه يعني مضغة ير أما وصلت ير من الرحم كويدي كجرت وحلو صدريا إليه الملك ملك بلو صدريا فينفخ فيه الروح ذو كافو فيها markaas uu deetana qofte jira noqonaya oo nolol leh ويؤمر waxa la amraya malaga la soo diray waxa la soo amraya bi 4 kalimat afar kalmadood baa la soo amraya بكتب رزقه in magaranaysa la qoro risqa ilmaha aloosh ku jira risqiisa oo la jaangooyo maalinta uu magaranaysa alool galo ileen markaas cuntadu bilaabmaysa naftiba ku jirto oo dhiig ba maxay galiya uruqdiisa oo soconaya إلا وقتك كدمن دونه رزقيسا ميل لو ساريا هل محيد الشيء يرى وقرن محيد ما دافيو wax aan qornayna ma qaadayo وأجله يأجشيسا يعني وقتك محيد noloshiisu ay ku beegan tahay maalintaas ilaa maalintu dhiman doono intay leeg tahay haday yar tahay iyo haday ka badan tahayba la yastaakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun quraan ku jirta inaan maxay qofka ajashiisu magaranaysa aanay soo hormareyn dibna aanay u dhacayn وعمله أيام حدا لقرية عمل كيسة يعني محو قبض doonaa ama wax xidhi fiican mise wax xun وشقي بالله soo amrayaan uu qoro shaqi in yahay qofta guul daraystay oo shaqaa ay u sugnaatay am sa'idun iyo inuu yahay mid magaranaysa liibaanay oo jannada gali doona waqtigaas la soo qoraya magaranaysa marka 220 habeen marka uu ku jiro 3-4aad ee la amro inuu malagaasi ruuxda ku afuufo ayaa afarta kelmadood la soo qoraya la soo magaranaysa la soo go'aaminaya xagga sare looxul mahfuudka sare laga soo go'aaminaya in maxay risqiisa loo soo qoro ajashiisu inta leegta loo qoro amalkiisa loo qoro inuu maxay yani noqonayo qof shaqi ah ama saciid ah ayaa maxay la soo go'aaminaya فوالله إلهي ما قدرتي الذي لا إله غيره أنو تشيرين إله كلو السلام حيدا لمدي إن أحدكم متكين لا يعمل وحو عمل فليا وصمينيا بعمل أهل الجنة أهل الجنة عمل كود فليا حتى ما يكون بينه وبينها إلا أنو ميقرنا ساي سنجي تشمدي أنا أبدحين به إلا ذراع لطم يعني عمل كام حدي في عن أهل الجنة وضيا إلا مقرنسة دمشقي وحيار والدراعيري مقرنسة أيام ضي ساعة ذكارسين فيسبق عليه الكتاب وح الصهر مريا كتاب كلا صوق قري وقت مقرنسة أي بقولي الله باتنا بين وتشري ونقول إنه الشقية فيعمل وحسمين بعمل أهل النار أهل النار كوحي فلان بمركز سمينيا فيدخلها ساسو قليا يعني خاتمة ذاك حمانس سبحان الله
وإن أحدكم متكين لا يعمل وحاو سمينيا بعمل أهل النار أهل النار كو عمل كي سمينيا بو طول عمره نصو سمينيا حتى ما يكون بينه إلا يسقيو مقران ساي النارتي أي أدحيس دراع فيسبق وحا أصهر مريا إليه وحا يسقى أصهر مريا الكتاب فيسبق عليه الكتاب كتاب كي قري وقت أصبع أصهر مريا فيعمل بعمل أهل الجنة وحاو عمل فليا أهل الجنة عمل كودة فيدخلها تبتنا وقليا جنة marka adu saxaabada xadiiska marka ay maqleen way wilwileen waxay dhahayn marka miyaan marka waxa hadii qofku maalintii maganaasay uurka galayba la soo qoray inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay marka ma iska fadhiisano yaani marka maxaan ka daalinaa dumarka rasuulku waxa uu yiri kullun muyassarun lima khuliqa lahu qof kasta wixii loo abuuray maganaasay uu ku dambeeyo maganaasay ayaa u fudud inuu qabanayo marka qof oo niyad jabin aduu amalka saalixa ina maxay ileen wax maxay kala meel kale ku jiidinay ma jirto yaani wax lagu siiyay yaani khiyaar wax lagu siiyay maganaasay doorasho marka inaad amalka ehlu jannah samayso ku dadaasho baa waxay ku tusaaran ilaahay inaad barido maganaasay inuu khaatimada khayr kugu khatimo iyo in maganaasay ilaahay qalbigaaga maxay xaq ku sugo اللهم ثبت قلوبنا على دينك maganaasay markasto ku ducaysato qalbiga maxay bini'aadanku waxa uu saaran yahay بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء marka qof aad khayr ku geed baa arkaysaa waxa kale uu rugmay iyo qof aad maxay shar ku geed oo khayrka uu maxay ku dambeeyay marka ilaahay baa haya tawfiiqda waxa jirtay marka maxay xadiiska afraad oo ah wasaynoo yahay xadiisyadii ka horeeyay waxa inoogu jira macluumaad fara badan sida mesela xadiiskii saddexaad oo kale waxa aynu ku soo sheegnay in Umar bin Khattab radiyallahu anhu uu dhalay caruur fara badan marka tiradooda soo sheegnay inamada iyo gabdhaha waxa jiray wiil iyo gabadh maxay caan ka ahaa maganaasay xaggaas saxaabada oo axaadiistooda ay fara badan yihiin marka comments-kayga nagu la wadaaga insha Allah ta'ala si aynu noqono maganaasay dad kala faa'iideysanaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh